halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban ee filmada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan subax wanaagsan khayrta hawada nagala xiriirtay waa aroornimo khamiis 3 bisha Maarso Afrikada Bari waxay haatan tilmaamaysaa 7 aroornimo oo gow ah. qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay duulaanka Ruushku ku qaaday Ukraine oo galay maalintii 8aad. beel madaxweynaha Puntland ku eedeysay boobka kuraastigan doorashadeedu tahay Boosaaso. kursigaas wax gacan ah oo hata noogu jira ma jiro wuxuuna ku maqaayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynuhu isaga maamushay qaabka wax u socdaana isaga u dhigay waxba naga soo weydiin la waa madaxii u sareeyay Puntland maanta. dagaal beeleed galaftay nolosha in ka badan 10 qof oo ka dhacay qaybo kamid ah dowlad deegaanka Soomaalida waxaa kaloo barnaamijka ku maqli doontaan nogob weyno naqhelaya ku noolaada oo geela naxnaxaya ku duduwaan iriga waa baanka dhaantada oo aan waraysi idinkaga hayno. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ka maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Cabdifataax Ibraahim Cagayre anigoo Xasan Ali Geel ayaan halkan idin kala socodsiin doona hadduu eebaha wadaleedmo balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh. mahadsanid Xasan. qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay caasimadda Ukraine ee Kiev toddobaad kadib markii Ruushka bilaabay duulaankiisa. muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya xolac ka dhashay qaraxyadaasi oo iftiimiyay samada caasimadda. ciidamada Ruushka ayaa si buuxda ula wareegay magaalada dekedda ee Kherson waxaana ay duqeyn xoogan ku wadaan magaalada labaad ee dalka ugu weyn ee Kharkiv. dacwadoogaha guud ee maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa sheegay inuu si degdeg ah u furi doono baaritaan ku aadan suuragalnimada ah in dambiyo dagaal ay ka dhaceen dalka Ukraine. Karim Khan ayaa sheegay in codsi arrinta ku aadan ay u gudbiyeen in ka badan 40 waddan oo caalamka ah. madaxweyne Biden ayaa sheegay in cambaareynta ballaaran ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay uu u jeediyay duulaanka Ruushka ay muujinayso sida uu caalamka u diidan yahay tallaabada ay qaaday xukuumadda Moscow. 5 dal oo kaliya ayaa ka soo horjeestay qaraarka aan awood lahayn ee loogu dhaliilay Ruushka waxaana qaadacay oo aan ka hadlin 35 dal oo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo India. wargeyska Forbes ayaa sheegay in dowladda Jarmalka ay la wareegtay doon nooca raaxada ah oo uu leeyahay maalqabeen asal ahaan ka soo jeeda Ruushka oo lagu magacaabo Alisher Usmanov. doonta ayaa lagu magacaabaa Dilbar waxaana qiimaheeda lagu sheegay 800 milyan oo dollar waxaana lagu qabtay magaalada Hamburg. midowga Yurub ayaa xayiraad dhaqaale saaray Usmanov waxaana lagu eedeeyay inuu xiriir la leeyahay dowladda Ruushka. wararka kale caalamkana waxaa ka mid ah gobolka galbeedka Australia ayaa xayiraadihii saarnaa oo ku aadanaa dhanka COVID-19 waxa uu ka qaaday gobolkaasi oo hadda waxaa geli kara dadka u safraya waa kaliya dadka qaatay talaalka cudurka COVID-19. warkii caalamkana waa naga intaa Xasan. aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh oo warka caalamkana la socodsiinaya dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen qaraxyo xoogan ayaa xalay ilaa saaka laga maqlayay gudaha caasimadda Ukraine ee Kiev usbuucan kadib markii uu bilowday duulaanka dalka Ruushka ee ka dhanka Ukraine. muuqaalo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinayay holaca ka dhashay qaraxyo waaweyn oo xalay ka dhacay gudaha magaaladaasi. ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale qabsaday magaalada dekedda ee Kherson waana magaaladii ugu weynayd oo ciidamada Ruushka ay qabsadaan. sidoo kale duqeymo xoogan ayaa ka dhacay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Ukraine ee Kharkiv. dhanka kale madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa amaanay shacabka dalkiisa oo uu sheegay inay difaaceen dalkooda. незважаючи на те, що їх у десятки разів більше, моральний стан walow dhab ahaantii ay tiro badan ay halkan ku joogaan haddana moraalka cadowga aad ayuu hoos ugu dhacaya. qaar badan oo ka mid ah kooxahan doonaya inay dalka iyaga qabsadaan ayaa dib ugu qaxaya Ruushka. waxaan la dhacsanahay muwaadiniintayada geesiyaasha ah ee ku sugan magaalooyinka Konotop, Bashtanka, Energodor iyo Melitopol. magaalooyinka iyo tuulooyinka kale ee Ukraine ay iska diiday inay soo maraan ciidamada dhulboobka ayaa dadku waxa ay ku hor istaagayaan wax walba ay awoodaan iyagoo wadooyinka ka xiraya. dadku waxay hor istaagayaan gawaarida cadowga. dhab ahaantii arrintaasi waa mid khatarteeda leh hase yeeshee waxay muujinaysaa dhiiranaantooda. перед ворожою технікою. Це вкрай небезпечно, але як це мужньо.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ee dhanka kale shirkadaha tiknoolajiyada caalamka ayaa intooda badan xayiraado ku soo rogay dalka Ruushka sababo la xiriira duulaanka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine waxaana shirkadahaasi ka mid ah shirkadda Apple oo joojisay in Ruushka ay ka iibiso adeegyada casriga ah ee ay soo saarto xilli wadamada reer galbeedka ay xayiraado ku soo rogeen dalkaasi Ruushka haddaba xayiraadahaasi maxay uga dhigan yihiin Ruushka su'aashaas iyo kuwa kale ayaan u bandhigay Cabdallah Macalin Maxamuud madaxa macadka tiknoolajiyada ee GlobalNet qadka telefoonka ee magaalada London ayuu igu waramay teknolojiyadda waa qayb yar oo ka mid ah marka loo fiiriyo cunaqabateynta baaxadeeda iyo saameynteeda iyo inta ay la eg tahay tusaale ahaan waxaa lagu soo rogay cunaqabateyn xagga bangiyada ah systemkii swift marka dhinaca teknolojiyadda wuxuu ka mid yahay cunaqabateynta baaxadda weyn oo la saaray waddanka ruushka wuxuuna ku lahaanayaa saameyn aad iyo aad u weyn waayo adduunka maanta waa digital adduunka maanta wuxuu ku dhisan yahay teknolojiyo haddii lagu soo rogo cunaqabateyn noocaas oo kale saameyn weyn ayay ku lahaan doontaa so tusaale ahaan hadda apple waxay joojiyeen wixii productyo cusub ah oo la iibin lahaa google oo kale waxay xanibeen rt oo ahayd mediaha lagu tuhmayo in ay dowladda isticmaasho inkastoo weli youtube iyo google ay caadi u shaqaynayaan marka taa waxay keenaysaa saameyn aad iyo aad u weyn oo xagga isgaarsiinta ah oo xagga dhaqaalaha ah dabcan shirkadahani waa shirkado ganacsi ku jiray badeecadahoodii ayay ka celinayaan Ruushka marka cid ay ula dan leeyihiin ma shacab weynaha Ruushka mise dawladda uu hogaamiyo Vladimir Putin shirkadaha laftooda culays ayaa saaran oo waayo badankooda waxaa laga leeyahay wadamadan westernka gaar ahaan wadanka Mareykanka maadaama dawladahoodii ay go'aamiyeen in cunaqabateyn ay saaraan taa waxay keenaysaa inay u hoggaansamaan nidaamka dawladahooda tan labaad waxaa la fariisiyey oo xanibaad la saaray systemkii swift lacagaha lagu kala qaadanayay soo taa lafteeda waxay keenaysaa in hanaankii lacagaha lagu kala qaadan lahaa uu meesha kala go' ku yimaado oo aysan suurtagal aysan noqon midda saddexaad waxay fiirinayaan dunida inteeda kale waayo waxa ay ka helayaan waddanka Russia waxa ka badan waxa ay ku weynayaan haddii aysan u hoggaansamin tacliimaadka ka soo baxay dawladahooda iyo sumcaddooda siday aaminsan yihiin inay hoos u dhacayso maadaama ay taageerayaan nidaam macnaha dictator ah sida ay lagu tilmaamayo hadalka loo dhigay marka waxaas oo dhan marka isu geyso ayaa waxa u muuqatay in ay hawlihii qaarkood ay hakiyeen marka shirkadahaasi tiknoolajiyada adeegyadaasi joojiyay dabcan saameynta iyada naftooda way taabanaysaa Soomaaliya oo Ruushka kaliya ma noqonayso dhaqaale ahaan markii la yiraahdo iyaga naftooda xasan waxa soo gaaraya dhibaato aad u baaxad weyn xagga dhaqaalaha sababtoo ah Ruushka waa wadan aad u weyn marka meesha waxa ka baxaya suuq aad iyo aad u weyn laakiin dhinaca kale marka aad fiirisid dunida inteedii kale oo is haysata iyo Ruushka oo dhinac loo faquuqayo macnaha waxay door bideen in dunida inteeda kale ay culayska ay saaraan oo marka ay suuqan inta isbedelka siyaasadeed uu ka hagaagayo oo marka ay hakiyaan adeegyadooda marka dhaqaale xumo oo ka soo gaaraysa of course Ruushka waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay dalalka ugu horeeya dhanka tiknoolajiyada oo xitaa marar qaar wadamada reer galbeedka sida Mareykanka oo kale dhowr jeer waxay ku eediyeen in uu u dhacay kombiyuuteradooda marka ma jirtaa falcelin oo arrintaasi ka sameyn karaya ama uu ilaa haatan sameeyay Ruushka marka la xisaabinayo tusaale ahaan xagga teknolojiyadda waxaa lagu xisaabiyaa inuu yahay waddanka 47 laakiin markii dhinaca ciidamada ay timaado waa waddanka ugu xooga badan adduunka marka laga soo tago waddanka Mareykanka waxaa xusid mudan in Russia ay samaysteen iyaga laftooda domestic internet wax loo yaqaan macnaheedu ay tahay in ay sahal u tahay in adduunka intiisa kale ay ku xirmaan ama ay ka go'aan marka ay timaado dhinaca internetka waana system ay sameeyeen 2019 oo ay tijaabiyeen marka haddii xaaladda adduunka ay xumaato waxaa sahal u ah in adduunka intiisa kale ay ka go'aan oo iyaga ay lahaadaan internet oo gudahooda ah maadaama awooddaasi ay leeyihiin dadka qaar waxay isweydiinayaan maxaa ka hortaagan waxyaabaha shirkadahan sida Apple iyo kale ay samaysteen ay haatan u diidayaan inay ka iibiyaan in iyagaba ay samaystaan waa su'aal dad badan ay isweydiinayaan laakiin waxaa muhiim ah sida hadda aan xusay Ruushka markay timaado xagga innovationka wax soo saarka xagga teknolojiyadda ah adduunka waxa uu ku jira waa 47 qiimeyntii la sameeyay 2020 dhinaca teknolojiyadda inteeda kale weli waxaa jira gaab macnaha aad u weyn marka waxaa jira waxyaalo oo casri ah sida microchip iyo sistemadan advance ay ku shaqeeyaan qalabkan elektroniga ah qaar badan oo kamid ah weli kuma aysan guuleysan in ay marka ay soo saaraan oo iyaga ay u sameeyaan si gooni ah talabaadna waxaa keeni karaya macnaha waddanka maadaama in badan uu hoos imaanaya Sovietska oo hanti wadaag uu ahaa oo shirkadaha aan loo ogolaan inay tartan gooni ay sameeyaan ama madax banaan ay sameeyaan taa waxay keentay in shirkado badan aysan soo bixin oo ku dhiirada in ay xagga dhaqaalaha iyo businesska ay u talaabsadaan oo si iskooda ah ay u sameeyaan research
strategic development marka waxaa loo baahnaa in xagga siyaasadda iyo dowladda lafteeda ay qayb weyn ka qaadato kaasi wuxuu ahaa cabdalla macalin maxamuud madaxa macadka teknolojiyada ee globalnet oo qadka telefoonka iigu waramayay halkaad nala socoteena waa laanta af soomaaliga ee BBC-da BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba wararka Soomaalida haddii aan eegnana mid ka mid ah beelaha degan gobolka bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani ku eedeeyay inuu boobay kursi ay beeshaasi lahayd oo iyada aan isinkii xaqa u lahaa uusan saxiixan la sheegay in la doonayo in doorashadeeda la qabto suldaanka beesha Ibraha Suldaan Maxamed Suldaan Axmed Jaamac Ayax Dhowre oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in madaxweyne Dani uu ka faramaroojiyay ama ka faramaroqsaday kursigiisa isla markaana uu u gacan geliyay cid kale sababo uu ku tilmaamay qoorsi awgeed eedeymahaani ayaa imaanaya xilli axadda soo socota la filayo in Boosaaso ay ka bilaabato doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka cusub ee federaalka Soomaaliya ee dogan doorashadoodu ay tahay magaalada Boosaaso Suldaan Maxamed Suldaan Axmed Jaamac waxa uu waramay wariye Maxamed Xasan Dhalo waxaa jira in beeshaydu ku leedahay matalaad aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliyeed heer federaal hal kursi oo lambarkiisu yahay hoob 220 deegaan doorashadiisuna ay tahay magaalada Boosaaso sad la socotaba kuraasta maanta taala Boosaaso 16 ah kursi walba waxaa mas'uuliyad ka saaran tahay ama wax laga weydiiyaa waa isinka guud ee beesha ama ha ka diiwaan gashanaado heer dawlad goboleed ama ha ka diiwaan gashanaado heer federaal kursigaas wax gacan ah hadda noogu jira ma jiro waxaanu aragnay isagoo oo yaala miidiyaha iyo page-ka ay ku leeyihiin gudida doorashooyinka heer maamul goboleed ay yaaliin nabadoonadii iyo bulshadii rayidka ahaa ee soo xulisay marka wax talo aan ku lahayn iyo waxaan laga weydiiyay iyo waxaan wax ku ogeyn midna ma aha marka xagee ku maqan yahay waxa tiri gacan noogu ma jiro kursigu sidee waanu gacanidi ku jirin adeer horta kursigani 20 sanadood buu soo taagnaa ilaa shirkii carta waxa seexayay aabahay oo Soomaalidu wada taqaan Suldaan Ayax Dhowre wanacaana Ilaahay ha u naxariisto isaga ayaa ahaa raggii dhidibada u soo taagay ilaa carta ilaa Imbagaati meel walba oo shir nabadayn lagu qabanayay nin caan ku ah nabadaynta Soomaaliya iyo isu keenista ummadda Soomaaliyeed Ayax Dhowre meel walba laga yaqaanay Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo isaga soo saxeexi jiray kursigan kadib markii uu xanuun ku yimidna xilkii anigu igu wareejiyay sanadkan bay ahayd inaan saxeexo anigu kursigan markaas daradeed maba hayaba kursiga way ga maqayaan meelan ka saxay iyo meelan aan ku gudbiyay midna ma jiro wuxuuna ku maqayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani isaga doona u maamushay sidee madaxweyne kursiga ugu maqan yahay guddiga doorashooyinka waxay soo saareen liiskaas inkastoo aad sheegtay inaysan odayaasha rasmiga ahayn haddana madaxweynaha ayaa tiri waxba ku maqan arrinta hadda dadka u jilcisid xagee wax ku maqan yihiin kursiga waxa laga tashadaa isinka guud isinku wuxuu soo xulaa 5 xubnood ee soo xulaya ergooyinka isaga ayaa soo xula u soo gudbiya guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed labarkana ka soo saxeexa taas waa taas oo wax warba laygama soo siin mana ogeyn meel lagu gudbiyana war kama hayn ta aan kulay madaxweynuhu ku maqan yahay madaxweynuhu isaga maamushay qaabka wuxuu socdaana isaga u dhigay waxbuu naga soo weydiin la waa madaxii u sareeyay Puntland maanta hal mar baan kulanay kulanka yagaas wuxuu aan isu soo noqono imaantinkii aan sugayay in mar labaad la ii yeerana waxa soo baxday un dadkan ergooyinka qoranaya iyo kursiga la leeyahay waaba la dooranayaaba waa isu tagteen maxaa ka wada hadasheen madaxweynaha waxaanu ka wada hadalay sidii bal la isla dhiraandhirin lahaa kursigan cidda maanta matali lahayd waxaan u sheegay madaxweynaha kursiga inaan asteeyay jifa gaara u asteeyay qofka ay u baahan yihiinna ay iyagu ka xushaan ama doorashaha ku soo baxo ama si kale ku yimaadee in jifada lagala xisaabtamo oo kursigu jifada ka soo baxo sida ay u asteeyeen ismada reer Puntland oo adiguba aad og tahay guud ahaantood taas bay alla mid ahayd astaynta anigu aan asteeyay waxaan filayaa dhammaantood astadoodii waa socotay laakiin taydii ma soconin laakiin halka waxa iga muuqatay dulmi cadaalad darro quursina la quursaday haddaan nahay beesha Ibraah ee aan isinka u ahay oo aad moodo ummadii in laga takooray madaxweynuhuna naga takooray ummadii kale sidii uu ula xiriiriyay simada kale aan la ii tixgelin layla xiriirin
sidii la doono loo maamushay kursigaas. madaxweynuhu ma wuxuu ku yidhi haddaa u sheegtay inaad astaysay kursiga oo aad beelo astaysay ma wuxuu ku yidhi beesha ka daa mise wuxuu ku yidhi cid baan rabaa ii soo saar arrintaa miyuu kaala hadlay adiga? madaxweynuhu may wuxuu yidhi astaynta ka daa kursiga anna waxaan ku yidhi astaynta laga dayn maayo kursiga ciddii beeshaas ka soo baxaysa ka xulo. maadaama aragna ay guddiga doorashooyinkuna shaqada leeyihiin ka xulada tani adigu aad wax siisay waxaan uga jeeday un beeshii aan u asteeyey in ay kala soo baxaan guddida doorashooyinku qofka ay u baahan yihiin dee guddiga doorashooyinkuna waynu ognahayo madaxweyne toos ugu xiran yihiin amarkiisaanay fuliyaan waxay ii sheegeen kursigaas iyagu awood inaanay u lahayn awoodoodu inay ku xiran tahay xafiiska madaxweynaha. dhanka beeshiin soo ma jirto kala jajabnaan oo ma jirto cid la socota ee raggan kaleeto oo liiska lagu soo saaray soo iyagu ruuxoodu beesha maaha inka kursiga doonaya iyo dadka kaleeto aad sheegayso iyaguna soo beesha maaha oo lama rabo xagga midnimada beesha intii dadka kale adeedayn lahayd suldaan. aqalkan hadda aynu fadhino albaab buuley laga soo galo laakiin waxaan aaminsanahay inaan ahay iskii ugu sarreeyey laga soo gelayay wixii looga baahday lagala xiriirayay taasaa meesha ka baxday waxaad moodaa xukuumadda Puntland aniga beesheedina isku kaydirayso. kaasi wuxuu ahaa suldaanka beelaha Ibraha Suldaan Maxamed Suldaan Axmed Jaamac Ayax Dhowre waxa uu waramayay wariyaha maxamed xasan dhalo dhanka kale waxaan isku daynay inaan la xiriirno maamulka Puntland oo aan eedeymahaasi u bandhigno hase yeeshee nooma aysan suurtagelin inaan helno dhegeystayaasha raayigooda soo dhibanay waxaa ka mid ah Sayid Cumar Cusmaan Cabdulle oo jooga Dhuusamareeb wuxuu yiri beeshaasi Puntland boobka kuraasta deegaan doorashadiisu tahay boosaaso ka cabanaysa waan soo dhaweynayaa sababtoo ah waa muhiim in beelaha gobolka bari loo madax baneeyo doorashada kuraasta taala boosaaso waxaan ugu baaqayaa oo yiri madaxweynaha Puntland inuu tixgeliyo cabashada ka soo yeertay qaar ka mid ah beelaha gobolka bari yaxye sarcadi uu jooga Cabdudaaqan waxa uu leeyahay beeshaasi beelaha gobolka bari ka mid ah madaxweyne Dani ku eedeynaysa inuu boobay kuraastooda ay deegaan doorashada tahay boosaaso runtii waxba soo korin mayso waayo boobka kuraastu waa mid ka socota guud ahaan doorashada oo dhan ayuu yiri dhegeystayaasha kale ee raayigooda soo dhiibanayo waa ay mahadsan yihiin waa hagaag dhanka iyo dowlad deegaanka haddii aan eegnana ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay tiro intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Lehelo Yucub ee gobolka Doole ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya dagaalkan oo sida la sheegay bilowday shalay galinkii hore ayaa la sheegay in maleeshiya beeleedkii dirirayay ay isku gabal dhacsadeen isla markaana uu jiro khasaare fara badan haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaan weydiiyay wariye Ismaaciil Buurgaabo oo jooga magaalada Jigjiga. xasano dagaalkan waxa uu ka dhacay dhul baadiye ah oo ka tirsan degmada Lehel Yucub ee gobolka Doolo meel xarunta degmada u jirto 25 kilomitir dhanka koonfur bari kaga beegan waxa uu bilaabmay barqadii shalay toole waxa uu socday ilaa iyo gabaldhicii shalay marka dagaalka waxa uu dagaal u dhaxeeya laba beelood oo halka wada degan oo midba midka kale ku eedeynayo inuu markaasi dhul balaarsi iyo durugsi wado waana arrin la xiriira beelaha Soomaaliyeed dibka dhexdooda ka dhacay la xiriira dhul daaqsimeedka waan gartay ilaa iyo haatan khasaaraha maxaan ka ognahay xiriiraan la sameeyay dad aaga ka agdhow iyo maamulka halka ka jira ee gobolka waxay sheegayaan tiradu dhowr iyo 10 gaari soo dhimasho ah dhaawacana sodomeeyo kor u dhaafaya khasaaraha ilaa iminka inkastoona wali xaqiijin karin inta ayaa lagu sheegayaa dhimashada dhowr iyo 10 iyo sodomeeyo dhaawaca xasano ilaa iyo haatan wax waan ama dadaal nabadeed oo socdo oo la doonayo in colaadaasi lagu soo afjaro oo aan ognahay ma jira inta aan ogahay dhaqdhaqaaq nabadoonnimo oo colaada lagu soo afmeerayo waxa weeye taabo galay ma jiro dagaalkana iskii uu istaagay kadib markii ay casar gaabad ay noqoto ee qorraxdii sii dhacday ilaa iminkana ma hubo inay jiraan cid hadda kala dhex gashay oo markaasi nabadeyn ka dhex wada labada beelood oo wada dega halka laakiin waxa jiray dadaalo ay dawladdu waday oo ka horeeyay intoosan dagaalkan bilaaban xasanow sidaan la wada soconno isku dhacyada beelaha salka ku haya dhul daaqsimeedka iyo deegaameynta isriixa dagaalada ka dhasha waxay ahaayeen kuwo soo jiray sina xogeystay 3 sano ugu dambeeyay inkastoo mar walba ay jirtay dadaal xukuumadda ay markaasi ku kala dhexgalayso go'aamana ay ka soo saarayso labada beelood ee wada degan ee markaasi dirirtu shalay dhex martay waxa Google u taaray magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo oo loogu kala garqaadiyay
go-aan soo baxay shalay barqadii ayaana la filayaa inuu mid ka mida beelaha markaasi ay dhibsatay dagaalkana uu sidaa ku bilowday sida dad xogogaale ay sheegayaan way jirtaa wayna socon doontaa ayaan filayaa xukuumadda deegaanka soomaalida xafiiska nabadgelyada ee dowladda deegaanka soomaalida inuu arrintaasi wax ka qabto oo markaasi dib loo isugu soo celiyo sidii loo nabadayn lahaa dadka walaalahay wada degan kaas wuxuu wariye Ismaaciil Buurgaabo oo jigjiga ku sugan oo qadka telefoonka igu waramay halka nala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da magaalada Wajaale ee Jamhuuriyadda iska ugu dhawaaqday madaxbanaanida Soomaaliland waxaa lagu aasay 4 qof oo shalay galab ku dhintay dab qabsadii guri ay deganayeen oo ku yaal magaaladaasi dadka dhintay ayaa kala ahaa 2 caruur ah oo walaalo ah hooyadood iyo waliba ehelkooda eedadood halka 3 caruur oo kalena ay ku dhaawacmeen dabkaasi Axmed Cismaan Axmed oo abto ah caruurta geeriyootay ayaa dhacdadaasi uga waramay wariye Xasan Galeyr لا راجعون جيردو حق عشان دعي لما عرورة يهودود يهودود عرورة وصقير يوم ذا دور وين كنا ولا نعمل دواشيين دواشي أحيان جيردا ساكت علي labada caruuri intay la leekaayeen sida la sheegay 3 caruur oo kale ayaa dhaawaca iyaga bal xaalkooda ka waran guriga khudwaa qofba ku joogay 4 qof ee geeriyoday iyo 3 caruur oo hadda dhakhtarka gabilay xaaladooda caafimaad ugu tacaalayo anoo hadeer u jaalan jooga mana ka awasin kara xaaladooda caafimaad laakiin laba sahala markaan qiimeeyay inaan ka kalana hal qofna emergency-ga lagu jiray waxoogaa oxygen-ka yaa ku socotay 3 caruura ee dhaawaca iyo labada dhintay maxay soo ahaayeen ma walaalay ahaayeen laga dhintay dhaawacina waa walaalo wiil yar oo kuwa dhaawaca ku jiraana waa inaad tigood labada dumar ay duwaashii ahaa marka gabadha kale dhimatay ayaa dhashay isagana gabadha kale dhashay intaad ka war hayso maxaa sababay dabka wallahi yani anigu waxaan joogay gabilay xaaladda degdega aan bala soo sheegay ilaa aan kula hadlahayo si ay wax u dhaceen ma aanan waraysan kolkii wareysay aan telefoonka igu soo dhacay anigoo shaqada ka soo baxayo guriga min 13 daqiiqo kolkaan guriga soo gaaray baa telefoonka igu soo dhacay xararkii wareeyay bajaajka xayseen gaaray dhakhtarkana waa ambulance iga soo horgalay Wajaale ka soo baxay iyadoo maamulkii gobolka iyo kii degmada Wajaale gobolkaasii iyo gudoomiyihii degmada iyo laamiga agriga joogaan baan ku tagay eedna 4 qof ee midkaana dalka midka yaalan qabaqaabadii geerida u bana hawsha galay iyo saan dhaqaajin lahayn marka waxa sababay wali ma xaqeeyo oo intaan ku gahay geerida oo ma ku xaqeeyo gurigu nooc ma aha guriga ay ku jiraan guriga waa kale guriga Wajaale oo joogo Wajaale waxa u badan tahay jingo guriga jidada ma sandaqada loo yaqaan hadda 4 qof ma la aasay xabaashoodii baan joognaa xabaasha la qodayo wali ma laanaasay taaskoodii baan gacanta ku haynaa xabaashan soo xilligan kula hadlayo balse caruurtaasi ayaa halkaasi lagu aasay kaasi waxa uu ahaa Axmed Cismaan Axmed oo abto ah caruurta geeriyootay waxa uu waramayay wariye Xasan Galeyr waa hagaag abwaan Axmed Budul Ismaaciil waa abwaan iyo fanaan dhaantooyinka ku caanbaxay oo ku nool caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga wuxuu ayahiisa fanaad ugu waramay wariye Ismaaciil Buurgaabo fanka waxaan ku soo biiray 2010kii taariikhda milaadiga European calendar loo yaqaano markii ugu horeysay maxaad samaysay dhaantadii ugu horeysay aan sameeyay waxa la oran jiray dhaantada daruur oo xilligii degmooyinkii cusbaaya dhowr iyo 10 ay u horeeyay halkan deegaanka laga sameeyay dib u xurashaduna ay waaga bilaabmaysi dhulka dooga badan aynu soo daawano aan dalxiisne daruur kale wada degne maxaa kugu dhaliyay fanka inaad soo gashid runtii horta anigu waxaan ahaa dadka halabuurka ku dhashay halabuurkii ugu jiray baana kalifay inaan fanka soo galo maadaama anigu wax curiyo ahaa iskuna ogaa inaan wax urin karo taa awgeed ayaan fanka u soo galay runtii dhaantada qayb sugaanta kamida weeye noocyo kala duwan bay leedahay sharaxaad kooban ma naga siin kartaa dhaantadu runtii waxay kamid tahay dhaqanka Soomaalida waliba lafdhabartiisa weeyaan waa marka ciyaar dhaqameedka la sameeyo ciyaarta kaliya ee marka iyada oo aan muusig wadanin oo farshaxan kala wadanin sideedii caadiga ahayd loo tumayo cid walba soo jeedata weeyaan way ballaaran tahay runtii iyada oo marka si guud loo wada eego jaanteedu ay isu eg tahay haddana qaab ciyaareedkeedu waa kala duwan yahay codadkeedu wuu kala duwan yahay sida ay u kala duwan yihiin teembooyinka afka qalaad loo yiraahdo reege sambo kratris iyaduna waxa weeyaan waxay leedahay rigo ruquusho garbaroga guuxo
berberey waxyaaba fara badan noocaas ay u kala baxdaa runtii waa ciyaarta keliya la odhan karo ciyaar dhaqameedka soomaalida way ugu qanisan tahay weeye samaynta dhaantada casriga ah timiga markii laga soo tago iyo heesta markii la samaynayo maxay ku kala duwan yihiin horta runtii labaduba waa uun suugaan waxaana curinaya uun halabuur waxaa kala duwan uun midna waa dhaqankii oo waxaa laga sameynaya eraya dhaqameed midna waa dee suugaanta casriga ah oo iyadana runtii waxa weeye isku suunbaa dareenka unbaa kala duwanaan kara laakiin iyaga oo u qaybsan ciyaar dhaqameed iyo fankii casriga ah ee caadiga ahay oo heesihiya waa isku midun wax saasoo farqo saasoo udhexay ma jira xagga curinta dhaantooyinkaaga dhaantadee ugu jeceshaya kolbataan markaa masraxa ka qaadayo weliba ay jiraan dee dhaantooyin caan baxay oo iyagu ay bulshadu jecel yihiin anigu waan sameeyaa laakiin bulshada kala doorata oo kala jecel kolbata ugu saamayn badan ayuunba anigana ila qaalisan hal dhaanto oo is leedahay way ugu saamayn badnayd sanadihii lasoo dhaafay balqac nooga sii nogob weyno naqhelaya ku noolaada oo geela naxnaxaya ku duduwaan iriga dhaantaas ugu saamaysan badnayd sanadihii aanu soo dhaafnay runtii dhaantooyinka aad qadid axmedow mararka qaarkood ma loo qaataa inay yihiin kuwa siyaasad lug ku leh dadka qaarkood way la jiidhaa wadda siyaasadeed kuwa degan dhaanta jacayl oo iska jiidhaa jirta oo iyagu u turjintaan xaaladda marka ay ku sugan yihiin siyaasadeed laakiin aniga marka horeysan samaynaya rabitaankayga wax siyaasad ay ku lug leeyihiin ma jirto laakiin waa laga yaabaa sugaan ahaan wixii aad samaysaa xaalad markaa jirta inay ku fadhiisato dhaantadaadii ugu dambaysay ee is leedahay saameyn bay yeelatay waatay haddaad xasuusatid dhaantada gaal iyo islaamba ka qayliya ugu dambaysay waxay noqotay dhaantadii sool runtii halyeeyadii daraawiishe lagu hirtiyo hooyadii geesiyaday badale dhashay halgamacaan ahiyo sooley hedha sooley hal abuhur gabyaba waa lagaga hadhay dhaantaas runtii ugu saamayn badnayd dhaantooyinkii ugu dambeeyey marka aan sameeyey abaan axmed budul dhaanta gooni adiga oo dareen aad ka samaysay jacayl may jirtaa haa way jirtaa runtii ninku markuu halabuur yahay inta ugu badan suugaanta waxaa laga yaabaa inay naftiisa la xidhiidho marka laga tago waxyaabo kale oo uu bulshada ku matelayo marka waxaa jirta dhaanta la yidhaahdo dhiig joojin yartu waa dhaawaco dhulka kama kacde ana dhiig joojiniyo irbadyaa iga dhiga dhadhan malaha nolol ay ka dhiman tahay yarta dhinaca iyo dheegayaa igu xidha dhaantada weyn runtii waayahay gabadha aad u samaysay waa xaasaskaaga miya horta haddaynu idaacadaha wada farfarayno waxyaaba badan baa kasoo baxaya runtii calaf iskumanaa yeelanin xaaladda noocaas ee jacayle calaacalka runtii aan ka dhawaajiyey waxay ahayd wax ayn ka baxsan imka xaasaska dee jooga ee igu cindan way ka baxsanayd runtii dee sideeduna ismaaciilow dumar badan baa igu cindan dumarkaa badan intaanu aniga ilaahay isla ognahay mooye dee inta kale adiguba waad garanaysaa runtii kaasi wuxuu ahaa axmed budul ismaaciil abwaan iyo fanaan dhaantooyinka ku caanbaxay oo ayahiisa fanaad uga waramayey weriye ismaaciil buur gaabo wararkii ciyaaraha haddii aan eegnana bilyaneerka u dhashay waddanka ruushka roman ibrahimovich ayaa xaqiijiyey inuu danaynayo inuu iibiyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea taas oo ka mid ah kooxaha sarsare ee ka dheela horyaalka Ingiriiska waxa uu ballan qaaday in lacagta halkaasi ka soo baxda lagu deeqi doono dadka ay dhibaatada ka soo gaartay dagaalka Ukraine arrintan waxa ay daba socotay cadaadis caalami ah oo cunaqabatayn lagu saarayo ama lagu soo rogayo maalqabeennada Ruushka ee aadka ugu dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin maalqabeenka u dhashay dalka Switzerland ayaa goorsii horeysay waxa uu warbaahinta u sheegay inuu ka mid yahay bilyaneerada la siin doono fursadaha ay kooxdaasi ku iibsan lahaayeen Abramovich oo 55 sano jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu xiriir adag la leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin arrintaasi oo uu gaashaanka u dururay Abramovich ayaa kooxda Chelsea waxa uu 2003 ku iibsaday 140 milyan oo pound waxa uu sheegay in go'aanka uu kooxda ku iibinayo aanay la xiriirin ganacsi وهاجا idaacadii oo soo saaray Cabdifatax Ibrahim Cadeer waa naga inta tan iyo 5 labada duhurnimo ay yiraahdeen sidaas iyo nabad galyo